xildhibaan Cabdisamad Sheekh Aadan oo ku magac dheer Jamaada isla markaana ka mid ah xildhibaanada xisbiga kulmiye ee golaha deegaanka Gabiley ayaa si adag uga hadlay aflagaadadii dhex martay hogaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Xaaji Cali iyo xildhibaan xisbiga wadani ah oo ka tirsan golaha deegaanka Gabiley isagoo arrintaasi ku eedeeyay hogaamiye Xirsi isla markaana ku tilmaamay riwaayad uu xisbiga mucaaridka ah ee wadani ku qalqalgelinayo xidhiidhka bulshada gobolada Gabiley iyo Togdheer waqti ay Soomaaliland ka jiraan abaaro baahsan oo soo noqnoqday horta wadanka waxa ka jira xaalad abaareed in hadal kalena loo baahna marka Ilaahay waxaynu horta baryaynaa in abaaraha Ilaahay naga soo furto oo sida ugu dhaqsaha badan leh nimcadiisa inoo siiyo inta kadib waxaan ka hadlayaa bariyaan waxa la isla dhaxmariyay hawlo dadka la iskaga horkeenayo oo xisbiga wadani wado hawlahaas oo Xirsi iyo Iid Xirsi Iidan waxaan ku matalayaa Jawaan iyo Sooraan waa xisbigii wadani cid wax la yeelayo wax kale ma jira dadka in la iska horkeena dhibaatay ku tahay dalka Gabiley iyo Burcaan isma diidana meel loo kala sheegi kari maayo bari iyo galbeed looma kala sheegayo waa Cabdirashiid Salabaan Muuse Somali Cable TV magaalada Gabiley.